yaa iska leh dastuurka. dastuurka waxaa iska leh bulshada Soomaaliyeed. dastuur kasta cidii samaysataa leh balse kan hadda dastuurkeenu waxaa iska leh bulshada Soomaaliyeed ayna qasab ku tahay inay hoggaansan dastuurka waxaa iska leh shacabka Soomaaliyeed. dastuurka Soomaaliya in bulshada Soomaaliyeed dabcan ku heshiisay qof kasta oo Soomaaliya meel walba jooga asaga leh wixii qaldan inuu ku qabto waa tahay waajib saaran wixii saxan inay sideeda ugu soo fulo waana aalada kaliya oo aan aaminsanahay qofka inuu ku heli karo xuquuqdiisa asagoo u maraayo maxaa la hab sharciya waajibkiisana uu ku gudan karo. dastuurka waxaa iska leh bulshada annaga iska leh qof kasta waa xaq uu leeyahay in bulshada qofkuna inuu yaqaano xaqa uu leeyahay iyo xaqa uu حق الدستوري وليه هي حق إنه الدستور كإلالية وليه قف كستنا إنه إلالية أي تهاي سيدو كلنا الدستور وبالشدة وإلالية أي تهاي حق أيجا أي إليه بالشدة لها شهر دستور كشعب الصومالي ذا أسكله وحن واجب كه إن الدستور كس دوران إلى شدان وحي قلدنا كسحدان وحي توصلنا كوها جديا runtii dastuurka waxaa leh bulshada Soomaaliyeed baa iska leh maadaama uu yahay heshiis bulshadu ay gashay oo ay dejistay oo lagu maamulayo bulshadii waxaan oran karaa bulshada Soomaalida ah iyo dhammaan muwaadiniinta Soomaalida ayaa iska leh dastuurka iyo dawladooda ayaa leh dastuurka waxaa iska leh ana ka aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed baa iska leh wadanka iska leh cid kale ma leh dastuurka hadda anaga iska leh cid kale ma leh cid kale ma lagu dhaqaa ana lagu dhaqaa laakiin anu waa inaan uga gudbaa sida saxda oo lagu dhaqi karo وأنا أمده وجودته لكن هذا أنا كاسكله